الرحمن الرحيم وعن وناكسن دابد يال كسو دوادا ورئيس عيسى بدن أو كسابسن عذر كان دنيا ريريي إلي رهدو كورونا فيروس أما كوفيد 19 وحن ورئيس كان سيني دكتور دادر أحمد يوسف أو كميدا دكتور الصوماليات كنا دقن جودها مقالة مقدسة مركورة دكتور كسو دو ورئيس كنا أنا كله هيولالك يا عبد الله فحسيني البرنامج واي هاي دكتور إن أبد أو ما صنت وقتها قاليها أدنى سيسي إن ورئيس كنا أدنى أقلاتي waxaan rabaa marka hore inaan ka hadalno cudurkan samareenka ah ee dunida faraba aan ku haya ee coronavirus markiis hore maxaa asiga leeyahay hore sam u jiri jiray intuu ka soo bilaabtay waa tahay su'aasha yani coronavirus xilliga hore yani muusan jirin laakiin hadda yani wuxuu ka soo bilowday waa hergab ku dhaca jiray yani xayawaanada ama duurjoogta runtii wuxuu awood u yeeshay in uu kaga soo gudbo dhanka bini'aadamka uu soo gudbo yani bini'aadamka asigana wuxuu isbiirati ama awood u sii yeeshay inuu u gudbiyo qofkan waayahay dadka hore cudurkan dad badan baa waxay aaminsan yihiin oo muslimiin ah inuu cudurkan kaliya ku dhacayo qofka aan muslimka ahayn maxaa marka ka jira runtii horta cudurkani waa meesha uu ka soo bilowday waa wadan yani diin kala haysta صح haddii oo maxay ahayd ama uu ka soo bilaaban lahaa maxay ahayd ama wadamada muslimiinta yani badanaas dadkeena waxay aamin lahaayeen in uu ku dhaco muslimiinta laakiin ugu horreyn ayuu wuxuu ka soo bilowday yani maxay ahayd wadan ama wadan kale diin kala haysta ayuu ka soo bilowday waayahay doctore waxaan sanadkii 2019 dabayaaqadeedii waxaan maqlaynay in cudurkan ku soo bilaabtay magac la yiraahdo coronavirus isla markaana bilowgii sanadkan 2020 bishii January in magac kale la yiraahdo COVID-19 ama COVID-19 oo la soo baxay marka maxay kula duwan yihiin ma laba magac mise waa halkii waa isla halkii magac laakiin yani waxa laba magac ka dhigaya waxay tahay yani coronavirus-ka oo la soo gaabiyay magac kale ahaan u qaatay waa haddii aan kala qaadno yani COVID-19-ka yani CO-da badanaa waxay u taagan tahay coronavirus corona ayay u taagan tahay VI-gana waxay u taagan tahay virus D-gana waxay u taagan tahay disease taasi markii la isku qabtay COVID-19 ee noqotay u taagan coronavirus disease waayahay hore marka cudurkan sida caalamka ama dadyowga caalamka ku nool ama dunida daafeeda oo idil ay sheegeen ismarkaana la yiri cudurkan wuxuu ku faafi karaa sikimo gudahooda iyadoo la istaabanayo ama habada la isku marinayo marka maxaa ka jira in faafitaanka sida sahlan oo ku faafi karo cudurkan COVID-19 COVID-19 horta faafitaanka classification of transmission yani laba qaab u kala dhacaa yani inuu noqdo community transmission iyo inuu noqdo local transmission community transmission ka wuxuu noqon karaa yani cudurkan inuu ka soo bilowdo wadan awal ognahay uu ka soo bilowdo hadda yani oo aad yani oo khasaaro badan u geystay wuxuuna ka soo bilowdaan wadanka Jeenaha ayuu ka soo bilowday wadamo kale ayuu u gudbay darasidiisa yani kaasi wuxuu noqonayaa marka community transmission ayuu noqonayaa local transmission kan wuxuu noqon karaa yani qofka wadankaasi u dhashay ama jooga inuu ku dhaco cudurka oo yani dib saas kaga soo gudbo ama travel soo sameeyay cudurkan marka wuxuu awood ku leeyahay oo qofka kaga gudbi karaa yani by air or neef yani kaga gudbo qof yani haddii qaba oo coronavirus uu qaba hadduu halkaan soo istaago wuxuu yani saameyn karaa daqiiqadiiba ilaa 5 qofood ayuu gaarsiin karaa waayahay hore marka waxaan in badan maqalnaa in cudurkani la leeyahay COVID-19-ka astaamiisa lagu garan karo cuncun dhanka neef mareenka ah iyo khandho iyo qunfac iyo hindhiso fara badan marka laga soo gudbo ma leeyahay astaamo dhanka qofka jirkiisa oo laga dareemi karo astaamo oo maxay ahayd qofka jirkiisa laga dareemi karo malaha laakiin wuxuu sameeyaa qofka ficilo badan ayuu sameeyaa runtii hergebka iyo asiga yani wax ay ku kala duwan yihiin difference waxay tahay yani short breathless inuu sameeyo qofka yani maxay neefta iyo neeftiisa ay gaawato intaas ay ku kala duwan yihiin asiga maxay hergebka waayahay hore gabagabadii barnaamijkan ku sii shaqeynaa ma leeyahay daawo loogu talagalay coronavirus-ka ama la dhihi karo coronavirus daawadiisa waa la hayaa okay hadda ma lahan daawo xaqiiq ah oo loogu daaweeyo coronavirus-ka oo loogu daaweeyo laakiin waxaa la sameeyaa karantiil qofkaasi oo kor loogu soo qaadi karo immunity-giisa ama difaaca jirkiisa in kor loogu soo qaado si uu cudurkaasi iskaga daafo waayahay anigoo ka faa'iidaysanayna waqtiga gabagabadana ku sii shaqeynaa sida loogu hortagi karaa cudurkan
cudurkan waxaa lagu hortagi karaa yacni in qofka qaba haddaan ka hadalno cudurkani yacni in uusan yacni dhexgalin populationka ama meelaha goobaha oo maxay laisku taga ama la wada fadhiisto laiskugu imaado laga wada sheekaysto yacni qofkaas hadduu iskaga shakiyo cudurkaasi waa inuu noqdaa mid gooni ah yacni oo dadka ka baxsan inuu noqdaa ama goobaha caafimaad waa inuu si degdeg ah ku wargeliyaa qofkaasi qofka aanan qabin wuxuu kaga hortagi karaa cudurkaasi waxay tahay in uu sameeyo yacni in 24 hours يعني لما ساعة مسدح ساعة وكله ويعني جيل كيسة أو جعميس ونظيفية هدي ويعني قفك سمين كانوا إنه قاطع كيف ما صحيح قالوا إنه حكته أما قلوب سمعوا قاطع واي هذا توري قبل جودي برنامج كان يعني نفسه قارني محات شعب كصومالي يقول أهم بمسلمين كضاونية عاد لبداية الهاد وحن كجدي لها وهل تقدين وكلية قف ولبو مسلم يعني من القدر كان يعني إنه جرو كورونا فيروس كا إن أنجره لكن يوم سرع سن قفكا يعني هنكود ذاله نرافد ديسا يعني سيدا جمع دقيقة أو كله إنه كود ذاله نمتي WHO حسوا صارتي يعني شروط بدن أو يعني للسلام قفك يعني كره لجى السلام أو كله يعني وحياه بدن يا سقايو محيد بدها ودن كان حدا عايم مرة البدن أوكي نمتي مركا يعني إن وقفك أو يعني وكفي كيران لا في الديسة يعني مهمة مرة ولا واي هاي دكتور أدبر ما سنتهاي قبل ورئيسها يعني سلسلة قارني برنامج كان ورئيسها حيسها بظن يعني وجود لني عذر كان صف مرين كدنيا فربا أنكوها هي كوفيد 19 وحان كورسني قلبتان نصيب كان نقول لني دكتور عبد القادر أحمد يوسف وكمت اختراض الصوماليين كل خن جودها مقالة المقدسة دكتور وأنا كان عندنا ورئيسها حيسها بظن وهي برنامجك واحد يرسل السنة أنا أستاذ عبد الله فارح دنك فرسمتي كاميرا ذا وحا كهجية وعبد الولي عمر فتحي أنت ورئيس عيسى بدنا كان لمدة عن كل مدانه وبهذه ورئيس كانوا إذا لا استاذ إياه أمانة الله.